jadwalka doorashada Soomaaliya ayaa la shaaciyay toddobaadkii la soo dhaafay. Golaha wadatashiga qaran ayaa 100 cisho ku soo koobay qabashada doorashada madaxweynaha iyo midda labada gole. Waxay kaloo goluhu dhimeen qarashka isdiiwaangelinta ee laga qaadi doono gabdhaha u tartamaya kuraasta labada aqal ee baarlamaanka. Dumarka waxaa laga dhimay 50% qiimaha isdiiwaangelinta ee laga qaadayo ragga. musharaxiinta mucaaradka ayaa qaar badani ka maqan yihiin dalka halka qaarna ay gudaha ka wadaan ololo u badan kulamo iyo isdiyaarinta qorshahooda doorashada. madaxweyne Farmaajo ayaa weli bannaanka kala socda geedi socodka doorashada kaas oo gacmaha looga xiray dagaalkii ka dhacay caasimadda bishii Abriil ee sanadkan. 25 Julaay waxaa la qaban doonaa doorashada xildhibaanada aqalka sare sida ku cad jadwalkii dhawaan soo baxay. doorashada aqalka sare waa meesha lagu ogaan doono musharaxiinta diyaarka ah ee dhaqaalaha u haysta doorashada. saamaynta musharaxiintu ku yeelan doonaan xubnaha aqalka sare waxay hordhac u tahay saameyntooda xubnaha aqalka hoose, taas oo iyaduna hordhac u ah cidda qaadanaysa ama sida adag ugu loolami doonta kursiga madaxweynaha. 54 xubnood oo aqalka sare ah ayaa la dooran doonaa. madaxda maamulada ayaa la sheegay inay durba bilaabeen inay musharaxiinta kala hadlaan inta sanatar oo ay rabaan in loo soo saaro. ilaa hadda dhowr musharax ayaa la sheegay inay diyaar u yihiin inay baxsadaan lacaga loogu soo saarayo sanataro, halka qaar badan oo markii hore loo arkayay inay dhaqaale heli karaanna ay aamusnaan ka soo hartay sida ay ku warrameen xubno ka mid a madaxda maamulada. musharaxii soo saara ama ay u soo baxdo ku dhowaad 15 ilaa 20 xubnood oo aqalka sare ah wuxuu noqon karaa mid ka mid ah labada qof ee ugu cadcad tartanka madaxweynaha. dad ku dhowdhow madaxda maamulada oo aan la hadalnay ayaan weydiinay qiyaasta maaliyadeed ee madaxda gobolladu ku qiimeynayaan halkii senatar, waxayna sheegeen ilaa $200,000 inkastoo kuraasta maamulada qaar aanay isku qiimo ka joogin suuqa siyaasadda. micnaha xisaabtan waa in musharaxii raadinaya inuu helo ilaa 20 kursi oo aqalka sare ah inuu ku qasban yahay inuu akoonkiisa ka soo saaro 2 ilaa ku dhowaad $3 milyan. madaxda maamul goboleedyada qaar waxaa laga soo xigtay in ilaa 15 Julaay ay haystaan musharaxiinta xilka madaxweynuhu si ay isula meel dhigaan xubnaha ay rabaan in loo soo saaro. taas waxay ka dhigan tahay in 2 asbuuc kadib la ogaan karo tartamayaasha dhabta ah ee xilka madaxweynaha Soomaaliya. tani musuqmaasuq ma tahay? jawaabtu waa haa. ma laga baaqsan karaase? waa arrin kale. doorashada soo aadan ee Soomaaliya waxay kaga duwanaan doontaa doorashooyinkii hore inay soo bixi doonaan dad badan oo la yaqaano cidda ay ka tirsan yihiin dhaqaalahana ka bixisay ee ay dhisayaan. tani waxay sii dilaysaa dadka aaminsan aragtida ah in xildhibaanada bannaanka lagu sugo oo markii ay soo baxaan la shukaansado codkana laga iibsado. musharaxii waaya ugu yaraan $2 milyan oo uu senataro ku soo saarto waa adkaan doontaa inuu sii haysto saadaal xoog leh oo la xiriirta doorashada madaxtinimada ayay leeyihiin dadka sida weyn isha ugu haya dhaqdhaqaaqa doorashada Soomaaliya. dhaqaaluhu waa cabir weyn marka laga hadlayo doorashooyinka dadban ee Soomaaliya. bisha Julaay waa bil tareenka ka tuuri karta musharaxiin badan oo laga nasan waayay 10 bilood ee la soo dhaafay. maxay kula tahay?